raggaa waxaan leeyahay mid walba sawirkiisa waan hayaa magaciisa waan hayaa cidduu yahay waan garanayaa. السلام الله عليكم ورحمة الله إذا الكيمة ملك استوى الدنيا دافئة إذا كجوكتان ولكن الله صال وإذا الله سيدي هراء إياه على ذلك runtii hadday tahay markii kugu horeysay aad soo booqato channelkan Hilaac Sool waxaan si xishmad leh kaaga codsanayaa channelkeena subscribe tiraado isla markaana like taad nagu dhiirigeliso wixii ra'yigana aad commentiga nagula soo wadaagto biidmillah. waxaan rabaa dhowr qodob inaan ka yara hadlo waadna wada ogsogtihiin oo waxaanu ku jirnay halgan wararkuna caawa waa badaa aad ay u fara badan yihiin laakiin waa soo koobayaa insha Allah muhiimadana ka soo qaadan doonaa. qodobkii koowaad wuxuu noqon doonaa aan ka hadli doono kacdoonka ka bilowmay gobolka Sool iyo gobolka u dumay jabhadda SNM runtii guushina maanta Sool bay taalaa oo la wada ogsoon yahay. raggii iyo dhalinyaradii kacdoonka bilaabay waxaan leeyahay guul iyo gobonnimo insha Allah. guushiina ku sii socda halgankiina ku sii socda hadday noqon lahayd banaanbaxyadii hadday noqon lahayd dagaaladii aad wadeen hadday noqon lahayd mowqifkiina aad jabhadda SNM halka meel aad kaga istaagteen yaan ladii ka hoosaasin fara badan baa ii muuqata waxaa ii muuqda gacmeyn fara badan waxyaabo fara badan baa ii muuqda waxaa ii muuqda rag odayaal ah oo arrimo siyaasadeed wada dhalinyarada mid baan ku boorinayaa halgankiinii wada waxay meheradaha furan jidadka la furay waa maxay war ma laascaanood baa amniya ogaada odayaashan idin leh cid walbaba ha ahaadaane jidadka fura ee qodobadan khaldan soo saaraya maatada ku soo loqoto magaalada laascaanood waxaasi waa sawir khaldan oo la gudbinayo bataatan baa yeelina xaqiiqda waa mid ah caalamka indhuhu ha wada arkeen in duulaan lagu soo qaaday gobolka Sool wax amniyahna uusan ka jirin nimankan kuma baxayaan naga baxa oo kaliya nimankan waa hooyadii dhashay shabaab qori caaradii waxaan haba yaraatay ku baxayaan ma jiro ciidamada SSCna waxaan leeyahay dhamaantiin ku soo wada xaadira gobolka Sool nimankanna xabad maahane wax kale oo maanta idinka dul kicin kara haba yaraatay horta ma jirto. qodobkayga labaad waa horgallo rag horgallo ah oo magacyadooda aan toos u naqaano mees ay ka soo jeedaan iyo reer nin walba reerka uu ka soo jeeda aan toos u aqaano qaarkood ay xigaan qaarkood waliba aanu saaxiibanahay dhow baa jira nimankaas oo loo ballan qaaday xilal inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wacad quursi weey wacad quursi nin darwiisheeda oo geeri loo u dhashaa la arki jiray yaa nin darwiish oo gurnimo qaato waligeed lama arag idinka hortiin run baan idin sheegayaa warma $100 iyo $200 baad damacaysaan inaad bulshadiina ku baabiisaan marma cunno yar soor yar baad ku baabiinaysaan ummadiina. raggaa waxaan leeyahay mid walba sawirkiisa waan hayaa magaciisa waan hayaa cidduu yahay waan garanayaa. haddii aad falkan ka bixi weydaan wallaahi ya billaahi ya tallahi fiidooga xiga nin walba magaciisa waa carabaabi doonaa oo horgal ah oo arrinkaa ka shaqeynaya waliba raggiina xilalka loo magacaabay oo la yiri xilal baa lidinku siinaya arrinka haddaad soo fulisaan haddii aad keentaan fiidooya caalamka indhaha tusaya in maanta magaalada laascaanood ay amni tahay gacanta SNMna ay weli ku jirto ragga la leeyahayow gadaasheeda waxaa ka muuqan doona sawiradiina foofoosha xun wajiyadiina foofoosha xun baa wallaahi gadaasheeda ka muuqan doona iyo magacyadiina saddexan halgankan looma kala harin halgankan ciddii ka soo horjeesata isin ahaado wadaad ahaado dhalinyaro ahaado cidduu doona ahaado cagta la marinayaa biidmillah cagta la marinayaa. qodobkayga saddexaad hay'adda UN oo hakisay dhammaan dhaqaalihii ay ku bixin jirtay jabhadda argagixisada SNM qaybta ciidamada oo hakad gelisay iyadoo maalmahanba meeting uu socday meetingkaas oo aan jecelahay inuu maalinka berri ah soo gabagaboobi doono wuxuu ku soo gabagaboobana wararkayga dambe ayaanu idinku faahfaahin doonaa. qodobka afraad aan rabo waa odayaal koofiyad baclayaal ah oo aan mid iyaga laftirkooda u garanayo oday ahaan idinkaga xishoon maayo isin ahaan idinkaga xishoon maayo cid aan idinkaga xishoonayo wallahi inaysan jirin. haddaad ka bixi weydaan hawlahan aad ku jirtaan waan ogahay
odayaal laga keenay tuulooyin waa la socdaa arrinkooda odayaal hotel xamdi dhuumasho ku gala arrinkooda waa la socdaa kaliya waxaa laga rabaa in fiidooyo iyo kilibyo laga qabto ay ku muujinayaan maanta gobolka Sool inuu amni yahay gacanta SNM-na uu wali ku jiro odayaashaas waxaa leeyahay inta wax soo qurbadi karteen soo qurbudeen inta danaha iyo qadiyada dhulbaahanta wax ku cuni lahaydeen ku cuntee adeerayaal oo meeshiina naga jooga halgankan waa halgan dhalinyareed weeye meeshiina naga jooga aysan ahayn cid loo aabayeelaya ma leh cid sharaftooda la dhowraya maanta haba yaraatee ma jirto idinkuna haddaad ka bixi weydaan waa wallaahi sawiradiina iyo magacyadiina xagga dambaad ku arki doontaan ta saddexaad fariin baan u dirayaa shirkadda golis waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin waa shirkadda kaliya aanu maanta leenahay xogag muhiim ah ayaa noo soo tabiyey in dagaal siyaasadeed lagula jiro shirkadda golis lana rabo dhammaan gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood in shirkadda hawada laga saaro maxaa yeelay shirkadahan kale aad arkaysaan Somtel Telesom waa shirkada jabhadaasi ay maamulaan laakiin shirkadda golis waa shirkadda kadaliya ee maanta aanu leenahay magaalada Laascaanood joogta shirkadda golisna waxaan leeyahay hambalyo halgankiina bartaas ka sii wada idinka laftirkiina cid maanta wax idin yeeli karta iyo cid hawada idinka saari karta ma jirto aan sii raacsado nimanka horgalada hadday odayaal ahaan lahaayeen iyo hadday dhalinyaro ahaan lahaayeenba war waxaanaad ku jirtaan ka baxa dadnimo idin ma aha waxaad ka faa'iideysaan oo sharaf xumo aan ahayn maanta ma jirto haba yaraatee warnin dadkaaga xasuuqaya maatadaadi laynaya adiga afki ku soo duubanaya miyaad garab ku siinaysaa sidoo uu walaasha iyo hooyada iyo aabaha ku dili lahaa miyaad garab ku siinaysaa maanta waa wax runtii laga xumaado haddii arrinkan aad ka bixi weydaan taaka idin la socdaa waa taaka hadda meel walba lugta dhigtaan waa idin la socdaa waana isgaranayaan raggaas odayaal iyo dhalinyaraba ay leeyihiin waxa igu ballana in aan shaaciyo magacyadiina saddexan qofka doonta ahaw sawiradiina fafaasho xunay halka ka muuqdaan war waxa idin leeyahay dhamaan saaxiibayaal waa Hilaac Sool oo idin leh haddii aad ilowdeen like subscribe fadlan hadda dhac ku sii nalana soco wixii ka soo gudboonaada ee wararkeena cusub arrimaha insha Allah sida iyo nabadgelyo